بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا برنامج كيني شيكا شيكو oo aanu maanta ku soo qaadanayna taxanaheennii ahaa raggii meesha intay isugu yimaadeen midab uu ka sheekeynaya way aragnimadiisii waxii ugu daraa adduunka waxaanu soo qaadanay ninkii xaaskiisuna uu xaaska qaaday wiilkii yaraa ee uu dhalayna uu kii kala dilay ninkii labaad baa sheekada qaatay wuxuu yiri niyo waxba ma arkin wuxuu yiri bari baa waxa dhacday buu yiri annaga oo 12 rati wadana oo inta aanu baadiye ka soo kacnay malmal iyo subag iyo adduun wixii beledka looga baahan intaanu soo qaadanay magaalo soo aadnay wixii markaanu soo gadnaan raashin nooc walba soo qaadanay masagaanu soo qaadanay bariis baanu soo qaadanay burta sokorta xaasaskii qoysaskii meesha degan oo dhan baan arbaxoodii soo qaadnay dhar nooc walba saddex maalmood baanu dhexda ku soo jirray buu yiri habeenkii saddexaad in reerkii markaa isleenahay ilaa laba geedi baa idin harsan yaanu meel seexanay buu yiri meel baanu maqribkii nimad salaadii maqrib baanu ku tukanay kadib dab baan shidanay waa raashin baanu karsanay shaah baanu karsanay annaga oo daal gataati dhacsan baanu intaanu dab meel ku shidnay yaan meeshii seexanay buu yiri dhinacan waxa naga yaalo yiri wax alla wixii dhar ahaa ee aan reeraha u wadnay halkan waxa naga yaalo yiri wax alla wixii badar ahaa uu noo waday aanu ratiyada inoo saarnaa dhinacan kale waxaan inaga yaal heeriyadii awrta laga dejiyey dufuladii wixii awrta laga dejiyey ayaa dhinacan kale naga yaal meel dhaxda oo weegaan oo dhaxan badan aan lahayn baanu samaysanay buu yiri dab yarna waa inoo shidan yahay waanu seexanay goor saq dhexe ay tahay yaan maqlay buu yiri waa ninka sheekeynaya wax leh madaxan kor u qaaday buu yiri waan dhageystay shanqar kale ma ana maqal waan ku noqday buu yiri hadana baan maqlay waan dareemay inuu libaax yahay saaxiibkay igarab jiifay baan kiciya aan wariya hebel dhageyso waxa dhacay isaan doctor qooriya xir waa libaax buu yiri qubxa day waxa yeeray ileen awrtibu intuu gees ka maray 12 rati ayuu qada iyo quraac iyo cashi iyo wax ka sameeysanaya ragii kalaanu toosinay buu yiri kaynta markaanu saa u galay ninkii ugu horeeyay ee hor socday ee waranka wata oo yor ku hay korkeyga laga tuuray meel uu ka yimid libaaxi iyo qaabku u qaatay ma garan karo laakiin waxa arkay ninkii hawadaas la lalay waa soo jeestay mid kale la tagay mid kale kala jibiyay ragga cabaadkoodii reeday bismillaah wariga soo nin walba dhawaaq raggiyoon codkooda garanayoon hebel leh yaa hal loo dhawaaqaya dabkii baa ii dhawaa intaan ku noqdaan xaabo badan oo meesha taal inta aruuriyaan dabkii saaray buu si bal iftiin aan u helno qori dab ahaan kala baxay hol ayuu yiri dagaal ma gali kari buu yiri awrtii ilaan bari hore ayaa lagu quraacday geed labi oo agteeda ahaan fantay buu waan fuul dayaxu waa dharaar 15aad weey ragga meedkoodii iyo awrtii oo meeshan daadsan iyo libaaxii halaaga ahaa oo kolba mid xoogaa ka soo goosanay yaan dushaas ka daawanay waxa igu daraada hadana oo taas ii labay dabkii aan soo qixiyay aan soo shidan oo ku daray ayaa heeriyadii qabsaday buu raashinkii 12 rati ee wadeen ayuu u gudbay buu maxaa meeshan daangoobay buu dhacda ku hay dufuladii buu baabiyay wuxuu baabiyay raashinkii wuxuu baabiyay dharkii aanu xaasaskii caruurta u wadnay waaga markuu bariyay isagoo raggii kulli wada cunay awrtii wada baabaash ayuu geedkii ii soo hoos fariistay hoosteedu waxa la aqoonay aqilay marmar baa ama ku dhaxdhacda afkiisa dhaxdin waa gariiray goor ay barqo dheer tahay ayuu shanqar maqlay buu shanqartii buu iga aaday wax yar kadibna xabad baan maqlay isagii ku dhacday in kale ma ogi laakiin shanqartaas uu iga aaday meeshii baan annaka aran adduunyada markaas ay ugu dareed buu yiri nin kala ku qoslay oo yiri waxba ma aad arkin ninka kale iyo sheekadiisaas adduunka maxaa kugu daraa intii aad nooleed barnaamijkeena kale aan ku soo qaadanayna inta aan ku kulmayna mid lamida waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh